kuwani waa shuruudaha looga baahan yahay inanka guursanaya inanta ay walaalaha yihiin madaxweynaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un. inanta gaashaanqaadka ee ay madaxweynaha walaala yihiin Kim Yong Chol oo da'deedu 29 jirka ay ku jirto sanadkan ayaa waxay hadda noqotay marwada koowaad ee qaranka Kuuriyada Waqooyi kadib markii darajo sharafeedkaasi ay u magacaabeen xisbiga talada dalka haya iyadoo walaalkeeda madaxweynaha ah oo ka daaweynay uu la raadinayo inankii ay guursan lahayd iyadoo la kala saarayo 30 nin ee u horeeya ee guurkeeda u soo ardaadhiga iyadoo 30kooduba isku dayayaan inay ku guuleystaan qalbiga inan kaliya laakiin ninka koowaad ee wadanka walaashi. waxaa hore u jirtay in nidaamka siyaasadeed dalka ka jira oo inanta u raadiyay cid kursata sanadkii 2012 laakiin goor dambe lagu andacooday in la waayay cid u qalanta waxaana xilligan dib boorka looga tumay qorshahaasi lagu doonayo inankii guursan lahaa Kim Yong Un oo shuruudaha laga doonayo ay ugu horeeyaan inuu ka baxay jaamacadda Kim Il Sung dhererka joogiisuna ka badan yahay 1 mitir iyo 75 sentimitir muuqaal ahaan wanaagsan kana tirsan militariga wadanka. sarkaal ciidanka Kuuriyada Waqooyi ka mid ahaan jiray oo soo baxsaday dhanka Kuuriyada Koonfureed ayaa ka sheekeeyay inantaasi waxaana uu ku tilmaamay inay tahay inan caadifi oo laga yaabo inay shuruudaha guurkeeda hor dhigto shuruudo adag. xogta meesha ku jirta ee ay tahay in daaha laga qaadana waa in dadka uu siyaasadda darteed u laayay Kim Jong Un ay ugu horeeyaan dadka xididka dhow la isagoo si xun u dilay raggii madaxda ahaa ee qabay eedooyinkii iyo in maabtiyadii cid kastaana hadda ka baqayso guurka walaashi taasina ay tahay sababta keentay in iyadoo 30 jir ay haddana ilaa maanta si ahaato inan timatidaan.